waxaa maalmahan ku jirtay miidiyaha in ay timid dowladda Itoobiya ciidan ka socda ciidankaas oo dowladda federaalka ugu tala gashay inay ku afduubto doorashada galmudug dadka la rabo inay ka hadlaan oo xaqiiqada ka sheegaan oo dadkaas inta isdhahaya waxay mucaarad ku yihiin dowladda federaalka waxay mucaarad ku yihiin waxa ka imaanaya galmudug waxaa la rabaa dadka u jawaabaya runta u sheegaya waa dadka meesha jooga xaqiiqada og adinka waxaad u aamusantihiin baa la yaabana horta marka ugu horreysa inaad adinka hadashiin xaqiiqada ka hadashiin meeshan waxa jooga inaan wax ciidankii Soomaaliya oo muxuu ahaa dowladda federaalka hadduu ahaan lahayd kii galmudug hadduu ahaan lahayd kii qaybta 12 hadduu ahaan lahaaba ciidamadii dowladda jooga dib dadka kuma hayaan oo adinkaaba xoogaal u ah maxaa la yiraahdaa ciidamo ajnabi ah Itoobiya hadana cid kale ha wadateen oo inta la idinku soo daadiyay guri idin hor fadhiyana ma jiraan magaalada kuma dhex socdaan xarumaha dowladda oo loogu talagalay ama ergada hala dejiyo odayaasha hala dejiyo ama shirarka loogu talagalay wax kuma aan arkin adinkii magaalada jooga marka waxa la idinka rabay inaad ka hadashiin oo tiraadin waxaas wax jira ma waa aamusteen maxay idin aamuseen ma ninka aan rabinin maxaa la yiraahdaa inay muxuu ahaa iskaga darsan tahay muxuu mucaaradku ku yahay dowladda federaalka iyo maamulkii asagu ku matalaya dowladda federaalka ay iskaga darsan tahay oo hawshii galmudug ku curiyaaminaya dagaal uu ku hayo dowladda federaalka miyaa raalli ka tihiin waayaa uga hadli weydeen maxaa looga hadli waaya marka wixii looga hadli waayaa laynka rabaa reer galmudug kuraasta keliya in la soo doonto ma aha kuraasta keliya in la soo doonto ma aha dadka ay warka u sheegayaan adinka idin dhageysanayaan waxay dhageysanayaan waxa waaye dadka meesha jooga oo maamulka ay ku dhisanaya oo raba inay wax dhismaan oo ka raba inay xilal ka qabtaan dadkaas warkooda dhageysanaya waay aad u hadli weydeen maxaa loo hadli waayay maxaa inta loo sheegi waayay marxalada laga yaab kuwaas dhagta loo taagaya marka inta ka gudbo aan rabaa wasiir Cabdiraxmaan Odowa xildhibaan dowladda federaalka oo galmudug ku matala baarlamaanka waay asaga iyo rag kale walaalihiisa oo la socdaan walaalahan aan ka dhamo waxaa la rabaa qofku inuu kala saaro waxna waa wax dadka la dhaxeeya oo mucaarad marka la yiraahdo mucaaradku waa badan yahay meel walba ka tirsan yahay dowlad goboleed kasta ka yimid laakiin midka galmudug mucaaradda galmudug hawsha ka socota waxaan isleeyahay ma aysan ahayn marinkiisa ma ahayn inuu galmudug uu mucaarado oo mucaaradnimadii ku soo dhexgeliyo dhismaha maamulka galmudug mucaaradida galmudug waxa waaye qof kasta oo reer galmudug waa raasamaalkiisa waaye tafaariiq ma ahan jabla ma ahan raasamaalkiisa rasmiga waaye galmudug waa raasamaalkeena federaalku umadu nagala dhaxeeya marka galmudug inaanan dhexgelinin mucaaradida lagu hayo dowladda federaalka taas anaka waajib nagu ah haddaan nahay dadkii galmudug ay dirsatay ee dowladda federaalka ay ku dirsatay waxa waajib nagu ah inaanan mucaaradin galmudug wax ka socdo waxa waajib nagu ah inaan inta nimaano wixii qaldan aan qabanno aan saxno anaga sixtaa naga rabtaa inaan saxnaa nagu waajib laakiin inaan mucaaradno oo waxa meeshan ka jira dadkaan dhibaatada ay u qabaan maamul inay dhistaan inaan anagu sii ragaadino oo sii baabino waajibkeena ma ahan dadka marka la rabo inay iska kaaya qabtaan adinka waay dadka la rabo inay iska kaaya qabtaan war naga joojiye dhahana waa adinka wasiir Cabdiraxmaan Odowa galmudug tii la soo aasaasay oo soo dhisantay asaga dhisay wasiirkii arrimaha gudaha oo dhisayay oo maamulka dhisayay asagu ahaa wixii uu ku dhisana xoogaal baa u wadana dhamaanteena qof maantay dhahay waa ka maqnaa waxay la tawaayariya sida ay ku dhisantana waa la ogaa hadday xulitaan noqon lahayd xildhibaan hadday noqon lahayd odayaal la xareynayo hadday noqon lahayd ergal la xareynayo si alla sida ay ku dhisantay waa la ogaa ayadoo ay saas tahay haddii maanta wax qalad uu dareemo waxaan ka filaynay dhigiisa jooga wasiirka arrimaha gudaha asaguna galmudug walaalkiisa jooga maanta
hadduu asagu shalay dhisayey inuu maanta asaga inta u yimaado geeskiisa fariisto wax la hagaajiyay ahayd oo haddii wax khaldan yihiin uu la saxo haddii wixiina ay saxsan yihiinna uu wax ka waday ahayd inuu maanta inta istaago maxaa la yidhahdaa miidiyaha uu yidhahda galmudug amxaaraa lagu qabsanayaa amxaara waa joogta cadaado marqaataad ka tihiin tii cadaado joogtay maxay ku joogtay ma cadaado cidi kaama xigtay ku joogtay ya soo dowladdii joogto federaalka lamaysa shaqaynayn soo wasiirkii arrimaha gudaha shaqada wadoo la shaqaynaysa maahan sabab maxaa ka soo uray midda maanta taraaba amisom oo ka tirsan oo ciidamada amisomta ka mid ah maxaa gooniya yaan galmudug dhismin soo maahan laga yeelimay maka yeelaynaa galmudug ee dhismin يا ماماتان أتجي قال مدوقين عدالة در لقى وذان كشاقة أنا وشاقة قال مدوقين أي محار لو قبصنا يا شاقة هنا إذا ما يسمع مدوق قبصنا يا شاقة أشنا بيه ما كوس حسين وحق لو قول يا هايبة لو قول مالها هداي وحق الدين أسرع واحد شوقي محل إذا كتن باتشوقي عيد دعوتنا متشرن قال مدوق يا أتجي كل واحد شوقين محل إذا أجنبي أردن ده كان سوماليا إسكاله أجنبي مالها دولة فدرال كان كتلس مدحوينه عبد الله محمد فرماتشو iyo rasuul xasan cali qayre labadiisa golo baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya annaga diyaar oo muxuu ahaa u taagan maxaa ka quseeya nimanka oo in loo tagayo mooto iyo maxamed James Wan iyo maxaa ka quseeya wax ka quseeya ma jiraan galmudug iskale galmudug baa iskale cabdiraxmaan waa kamid shaluu dhisay wixii uu ku dhisay wax ka fiican baan rabnaa inaan ku dhisno haddii ilaahay yiraahdo si ka qurux badan inay u dhisanto oo cadaaladahan ka rabnaa si cadaalada oo qof walba iskaga dhex jeedo ayaan rabnaa inay ku dhisanto ma rabna si shalay inay ku dhisanto marqaataa ka tihiin si shalay inaan rabin ma rabtiin si shalay maraalaa ka tihiin sidii shalay si ka qurux badan baan u dhisaynaa annagaana u taagan annagaana difaacanayno haddii ilaahay yiraahdo intaas markaan ka gudbo waxaan rabaa anay reer galmudug baan waana isnaqaan maamulkana waa wada joogno wada dhisayna xildhibaan baan ahaa halkaan shirkii dib u heshiisiinta ugu qabtay 12 beelood aan ugu qabanaa aniga xildhibaanada kale iyo mas'uuliyiinta kale annagoo is ogol oo inaan maamul dhisano rabnaa waxaan ku tagnaa cadaadad maamulkaan ku soo dhisanay hanoo fiicnaado hanoo xumaado wuxuu yiri أهل السنة والجماعة لقنعوا واي أهل السنة والجماعة هشيس كذا الفلي أهل السنة والجماعة لو سمرا مركي نجاق بصدقنا نكو كم قن أو أي أهد قانكو لجوه شيء إن مدحوينها أنا لجو صدرته عداده مركي لو صدرتنا لو سمرا بمجال مدح هذا لجو على مساره أهل السنة واتمد لو سمرا بين نجاق بصد مدحوينه حسن شيخ وصدره وحيري أسيء وسير عبد السمد وأسيء كهري حلبان أنا لها أيوه أنت تكتب رسمرات سوقا إيه علوم هذا وحي أي ربان صوصي وحي أي ربان أنت كدي ذي على هذا ناقص اللابت وقارن كرنا وحي وكودي وقدي ذا وحي مالك سوسين كري وحي الله أقلا مدحوينه وأقلا سير وسين كري وحي وسين واي وقدر يم كرنا وكان نقضي وحي رواد دين sidii baan ku dhisannay ahlu sunnada maanta joogtaa tii waaye tu kala ma ahan midda maanta joogto tii daraadu ka taga waaye asaga ma aan mid cusub oo soo degtay waxaan rabnaa cabdiraxmaan inuu dhagaha ka maqla hadalkaas inaan ognahay inaan suuq hadlaayeen u hadli karnaa inaan ogeysiyaan rabaa annaga wax badan baa la sheegay wax badan bay dawladda ka tirsanahay iyo ka soo horjeesteen mucaaradeen caawa ka hor inaan hadalkiisa ka hadlo kuma aan talagelin caawada asaga iga keenay wuxuu keena waxay tahay galmudug aniga waa raasamaalkayga adinkana waa raasamaalkiina asagana waa raasamaalkiisa hadduu garan waayo inay raasamaalkiisa tahay ee uu galmudug muxuu ahaa ka urinayo maxaa la yiraahdaa dawladda federaalka uu mucaaradayay dawladda federaalka way ka sukaysaa inkastoo dawladda federaalka xubin ka tahay dawladda galmudug
haddana waa raasmaalka anagii rasmiga ahaa oo aan ka nimid oo ayna dirsadeen oo dawladda nagu darsadeen dawladda waxaan ugaga wakiilnahay wixii horumarkooda wixii wanaagooda inaan kaga shaqeyno wixii ayaka dhibayana oo lagaga gardaran yahay inaan ka celino waxay kaga gardaran yihiin reer galmudugna inaan kaga celino dawladda kaga celina annaka waajibkiina loo dirsada aha ma ahayn wixii galmudug danteeda aha inaan dib ugu soo noqono ma aysan ahayn marka waxaan leeyahay cabdiraxmaan iyo ragga kale oo la midka walaalahay oo reer galmudugga allah garansiiyo arintaas ayada allah garansiiyo inay gartaana waa u rajaynaynaa waxa soo haray musharaxiinta galmudug taagan kursigan waa hal xabo oo madaxweynaha ah iyo hal xabo madaxweyne ku xigeen ah iyo gudoomiyaha baarlamaanka iyo labadiisa ku xigeen ninkii ilaahay u calfo oo looxul maxfuudka ilaahay ugu qoraa qaadanayo nin kale oo qaadanaya ma jiro ninkaas asaga iimaanka inta la isgeliyo nin walba dhaladaas la dhigaayo meesha u soo diyaar garoob laakiin wax lagu curyaaminayo galmudug dhismaheeda ka sugi mayna kamana rabno kana yeeli mayno ninkii dood qaba shalay musharaxiintu waa badnaayeen cabdiraxmaan odawaa iyo madaxweynihiisii ninbay baabuurkii uu ku socon lahaa iyo calankii iyo barti la surayay iyo boorsooyinkii baabuurka diyaarad ka soo wada dejiyeen waa wada joogna marmaanaan joogin miyaanaan joogin waa ka soo dejiyeen yaa dood ka keenay dhaladaa la wada tegey ayadoo loo jeedo baa dhalada la wada tegey dhaladii baa lagu kala guulaystay waa lagu shaqeeyey waa saasay kugu dhisantay maantana tiiyoo kale boorsad soo saari mayna diyaarad baabuurna soo saari mayna annagaa ka ah maxaa la yidhaahdaa meeshii shalay ay ka joogeen cabdiraxmaan iyo tiimkiisii waxaa ka jooga sabriye iyo tiimkiisa ballan baan qaadaynaa inaanaan baabuur iyo madaxweyne iyo calan iswata iyo boorsooyin ka soo dejin diyaarad waa ballan aan caawa hortiina ka qaadayo mas-uul aniga muxuu ahaa dawladdii federaalka oo galmudug anaa hadda gabdhahan kaleeto waa midna waxay ka timid koonfur galbeed oo laga soo doortoo kursigeedu yaallaa tan kalena wuxuu yaallaa jubbaland qofka kursigeeda halkan yaallo dadkii aad dirsateen midka ah waa aniga ballan baan idinka qaadayaa inayna ka soo degin diyaarad baabuurkii ninkii la watay iyo baabuurkiisii iyo calankii iyo bartii la surahayay iyo boorsooyinkii inaysan ka soo degin baa naga ballan ah booskii cabdiraxmaan odowaana waxaa noo jooga sabriye ma dhacayso ku seexda ku soo toosa ma dhacayso waxaan rabaa aniga caawa halkan waxaan u soo istaagay inaan runta idiin sheego adinku haddaa hadli weydeen inaa hadashiinna waa laynka rabaa ma ka soo degayaan diyaarad marka cabdiraxmaan iyo kamaal iyo qoorqoor iyo inta kaloo tirada badan loo wax rabta ha soo diyaargaroobeen ha yimaadeen ninkii wax isku haya galmudug ha u yimaado wax u tarayo ninkii galmudug wax u taraya ha yimaado halkan taasaa noo ballana adinkana inaad runta ka hadashiin etoobiya timid ciidan lagu afduubayaa yimid waxaa la xirayaa ahlu sunna la xirayaa macalin maxamuud baa waxaas waxbayaan lagu rafan macalin maxamuud shiiqii magaaladan waaye shiiqii dalkan wax ka soo qabta waaye maanta meeshaan inaan ku heesno aan ku maxayheeday muxaadaraysano aan ku sheekaysano ilaahay weynaa ka sokow culummadeennaana gaarsiisay ayagaa nagu soo meel simay maantana dawlad baan u leenaha haddii ilaahay yidhaahdo marka waxba yaan laysku xuuxinin dadkaanu waa dad walaala waa reer galmudug hadduu ahlu sunno yahay iyo hadduu dawladda federaalka yahay iyo hadduu galmudug yahay waa hal mid saddex maniin hal midaan nahay meel baana ku wada shubi doonnaa haddii ilaahay yidhaahdo culummadoonnadoo raalli ah annagoo raalli ah maxaa la yidhaahdaa galmudug waa raalli ahaan galmudug wada dhisan doonnaa insha allah haddii ilaahay yidhaahdo taasna niyadda ku sheega ku qabowsada taasna niyadda u sheega maxaa la yidhahdaa ku qabowsada laakiin waxaa laynka rabaa reer galmudugow kursigu waxba ma tarayo kursigu dadnimuu rabaa kursigu wuxuu rabaa dadkii loo qaaday in lagu difaaco in loogu shaqeeyo shaqada iyo difaaca iyo doonista waxaa ka mid ah waxa qaladka oo galmudug laga sheegayo oo waxyaabahaas aan ka hadlayo ay ka mid yihiin inaad ka hadashin
hadalkiina gaal dhageysanaya hadalkiina dadka kale islaamka maqlaya hadda meel walba oo waxa leeyahay amxaara tagtay waa la xoogayaa sidii baydhabo laga baydhabo waa baydhabo galmudugna waa galmudug yaa galmudugna dad la dhici karo oo waxay sakar Allaah lagu dhici karo inaysan idinku waa ogtiin waxa la rabaa baydhabo waa soo moodo waxay ahayd galmudugna wixii hore waa soo moodo hadda loo joogaa hadda ayaa loo joogaa ninkii xoogaa laga roonaayo gabadha loo guuriyo waxay yiri wallahi hadday rag rabtaa markii laga dareeray galmudug hadday rag rabtaa gabdho iyo wiilal galmudug hadday rag rabtaa ha loo diyaar garoobo haddii Ilaahay yiraahdo